hooyo Xaliima Daawud Maxamed waxay subaxdii u soo kala hadaa si ay nolol maalmeedka qoyskeeda kaga soo saari lahayd cabitaan ay ku wareejiso gaari gacan taasoo dhif iyo naadir ay ku yihiin haweenka ku nool magaalada Jowhar shilmaadka ay ka soo saarto iibinta cabitaanka ay ku wareejiso suuqyada magaalada Jowhar waxay ku masruuftaa ama ay ku biishaa dhowr caruur ah oo iyada hooyo ay u tahay aabahoodna shaqo la'aan uu ku hayso magaalada Jowhar waxbarashada ayay sidoo kale kaga dhiibtaa caruurteeda hooyo Xaliima Daawud Maxamed ayaa xilli ay ku guda jirtay raadinta nolol maalmeedka qoyskeeda waxa bartamaha suuqa hanti wadaag ee magaalada Jowhar inuu dhaxmartay sheekadan Xaliima Daawud Maxamed 8 sano hawshan haya waxaan faa'iido aan ka soo saarin ma arkin 8 sano kaamil aan hawshan haya waxaan biyo aan ka soo saarin ma arkin waan qasaa waa wareeji 24 saac madaxa dhan waa iga cadaada xijaabada tarbuushada waa igu wada cadaadeen waxaan faa'iido aan hadda maanta aan ku heestoon ka soo saari ma arkin waa shaqo la'aanta magaalada taala igu kaliftay inaan wareejiyo magaalada shaqo ma laha marka miiski hadaad miisaan furtay miiskin hadaan ka soo saari waa inuu maxay tahay biyo igu gadmo igu kala socdo waxaan aan heestay inaan naag walba gurigeed meesheeda ugu geeyo saasa igu kaliftay inaan wareejiyo qofti meesha fadhiso ugu geeyo miiska dadka sidii ma u imaanayaan waxna hal ma ku gadmaayo marka saasa isaga wareegsada aan ku gataa taniya leen iyo cambaan qasaa galaaskin 2 kun aan gataa walaada miiska fadhiso 2 ka badan ku gadmi ma karto hadda saa iskaga wareejiyo 4 tarmuus 3 tarmuus ku gadmayso walaahi mar waxa ka helaysaa 60 kun mar waxa ka helaysaa 50 kun saasa wax ooga leeyo hela waa nolol maalmeedka ha caruuran leeyahay sidee ku maareysaa caruurteedu walaahi saasaan ku ninka shaqo nooma haayo shaqo la'aan hayso marka waxaan meeshan ka keekaysto oo ka helan ku maaleystaa shabeelo waxaan aan u dhiibinayaa inay waxa ay nagu soo kaalmeey karaan ay nagu soo kaalmeeyaan sidaan u gadayna cabitaan la aan u nahay magaalada u dhex joogno aniga hadda sida kaligayna ma ihiyo dad badan ku soo xarooday wada wareejinayo nin duq la yiraahdo naaga badan niman badan sidaas marka beeladka uga wada dhacsanaa marka nin walba nolol maalmeedka ka soo raadsanaa ma meesha waxaan ku hayna ma jiraan hore hadii aad u arki jirtay cabitaan lagu iibiyo miisas way ka duwan tahay Xaliima waxay ka mid tahay dadka gacantooda ku xamaasha iyadoo riixaysa gaari gacan kuna iibinaysa cabitaankan idin muuqda Yusna Maxamed Axmed Hirshabeelle TV Jowhar